inoo martay aynu soo dhaweynaynaa guddigii doorashada ee Puntland oo dhammaystiran gudoomiye ku-xigeen xoghayn xubnahooda afhayeen sidii ay u dhisnaayeen waxay ku soo hormareen gobolka Mudug oo ay ka bilaabeen safarkoodii gobolka Mudug bay ka bilaabeen iyaga idin sheegi doona waxay u socdeen laakiin waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolka Mudug waxaanu Mudug ugu soo hormarnay waxaan u maleynayaa waa laga dhareegsan yahay in hadda taabto Mudug waxaan rabnaa sanaadiiqda iyadoo lagu soo dhaweynayo caleemo qoyan inaan soo laabano hadduu Ilaahay yiraahdo marka ahmiyadda ay leedahay iyo maaragtay bulshadan oo inta badan fariimo badan ay nooga imaanayeen oo isku dayada qaybtooda oo hore u ciil qaba inay maaragtay wixii khaldamay toosiyaan ayaan u go'aansanay inaan ka soo bilowno socdaalka iyaga Mudug hadduu Ilaahay idmo waxaan rabnaa hannaankeenna isdoorasho iyo maaragtay maamuli inuu ahaado mid la eg innaga khibradeenna iyo jiritaankeenna 21 sano iyo ziyaadaynu jirnaa ilaa waagii aasaaskeenni waxaynu ku hamiyeynay inaynu doorasho qof iyo cod gaarno waxaan rabnaa maanta inaynu kaga dhabayno hadduu Ilaahay yiraahdo sanduuqyadana ayaga aan ku soo bilowno insha Allah marka la gaaro doorashadaas maantana waa kulankayaga u horeeyay aan rabnay inaanu heer gobol aanu ku daafurno qorshaha iyo jadwalka doorashada qof iyo cod ee golayaasha deegaanka Puntland oo dhan hadduu Ilaahay idmo tafaasiisha waxaan u daynayaa saaxiibkii Cabdirasaaq markaan dhamaystirnana waxaanu diyaar u nahay wixii su'aalo la qabo oo maaragtay u baahan caddayn ama faahfaahin ziyaada ah inaanu idinka jawaabno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan jecel lahay inaan idinla wadaagno macluumaad ku saabsan geedi socodka nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo ay hormuud ka yihiin guddigan maanta hortiina fadhiya kaasoo ah wax ama himilo soo bilaabatay 1998 markii la aasaasay Puntland axdigii koowaad ee Puntland lagu dhisayna ay ku qoray 3 sanadood kadib in doorasho qof iyo cod loo dareero marka waa himilo muddo dheer soo socotay oo aan hadda halkan idinku nimay xaqiijinteeda in la gaaro hay'adda doorashooyinka Puntland ama guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee Puntland waa hay'ad loo asaasay danguud u qaabilsan dowladda Puntland doorashooyinka golayaasha deegaanka laba tiir ayaa ugu muhiimsan shaqada guddigan qaban doono ama ay u xilsaaran yihiin tiirka koowaad waxa weeye in dalku ka gudbo nidaamka dhaqanka ku salaysan ee aan wax ku doorano una gudbo doorasho qof iyo cod tiirka labaadna waxa weeye oo labadoodu ay soo hosgelayaan waa in ay ka dhacdo Puntland ama ay qabtaan guddiganu doorashada dawladaha hoose oo qof iyo cod ay ku tartamaan ururo siyaasadeed kadibna natiijadeeda ay ka soo baxaan xisbiyo waxa muhiim u ah doorasho marka la qabanayo shuruuc iyo xeerar waxa inoo diyaarsan dhammaan shuruucdii iyo xeerarkii doorashada lagu maamulayay ama lagu hageeyay oo uu kow ka yahay sharciga uu ku dhisan yahay ama xeerka uu ku dhisan yahay guddiga waxa laba ka ah oo jira xeerka dhaqaya golayaasha deegaanka waxa saddex ah oo isaguna jira xeerka xisbiyada iyo ururada siyaasadda waxa jira habraac kale oo isaguna xeer ah oo lagu diiwaan gelinayo ururada iyo habraaca diiwaan gelinta ururada siyaasadda xubin ka mid ah komishinka doorashooyinka mudane Sahra Saalax si kalmad haweenka ula dardaaranto fariinta aan idin soo gaarsiinay waxay tahay sidaynu la socono dumarka Soomaaliyeed waxa weeyaan lafdhabarka mujtamaca xagga dhaqaalaha korinta qoyska nabadgelyada iyo siyaasadda sidaa daraadeed waxaan jecelahay gabdho inay fursadda ka faa'iideystaan intaasoo kale waxaad ku horumarin kartaan markaad ka qayb gashaan ururada siyaasadda ee soo socda waa inay idin doorkiina gabin ururada siyaasadda soo socda sidaad arrimahaas oo dhan kor uga qaadaan sidoo kale waxaan ka codsanayaa madaxda gobolada iyo degmooyinka inay gabdhaha fursadooda aanay dayicin ay u ogolaadaan waad mahadsantihiin
isku duwaha wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska mudana bishaaro saro dhammaan guddiga doorashada ugu horeeya guddoomiyaha guddiga waan uga mahadcelinaynaa runtii waa barnaamij aad fursad ugu ah dhalinyarada iyo waxaa la dhihi karaa haweenka sababtoo ah waa nambarka ugu badan bulshada aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa inay fursad u noqon doonto oo ay haddaba sida bulshada meesha joogta ay ugu badan yihiin dhalinyaradu iyo haweenku ay sidaas uga faa'iidaysan doonaan aad bay u mahadsantihiin guddoomiyaha degmada Bursaalax mudane Maxamed Saleebaan soo marka hore waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo aan runtii u arko inuu maaragtay madaxdeena hore uga duwan yahay xilliga uu ku soo beegay inuu magacaabo tiimkan doorashooyinka runtii waxaan u arkaa inay ahayd go'aan geesinimo leh xilliga maaragtay ay ku soo beegatay arrintan waxaana muuqanaysa inay ka go'an tahay in la taabageliyo oo la dhammaystiro mashruucan oo ah iftiin runtii waxaan u arkaa xayndaab jabinaya barnaamijkii qabaliga ahaa oo caqabad runtii ku ahaa dadweynaha Puntland waxaan rajaynayaa inuu yareyn doono barnaamijka qabaliga oo sii kordhayo oo sii siyaadaya waxaad dareemaysaa halkaas qabiilkii baa wuxuu noqonayaa maaragtay xoogaysanaya marka barnaamijkan waa reduce garaynaya aad buu u yareynayaa waxaa kaloo imaanaysaa qofka markii uu ku yimaado qabiil lama xisaabtami karo laakiin barnaamijkan isla xisaabtan iyo ahmiyad weyn buu leeyahay guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug mudane Ali Raado Cabdiqani waxaan aad iyo aad maartay runtii ugu faraxsanahay maanta halkaan inay noogu yimaadaan guddiga komishinka ee kumeel gaarka ah ee heer Puntland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay raallina uguna qanacsanahay barnaamijka dimuqraadiyeynta ay noo keeneen muddo 20 sano kadib in ay Puntland ka baxdo habkii dhaqanka wax lagu soo dooranayay oo ay u gudubto habka casriga ah ee adduunweynaha wax soo doortaan oo ah dimuqraadiyadda waxaan uga mahadcelinaynaa xaqiiqatan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo ku dhiiraday runtii sanadkii koowaad in uu guddigaas noo soo dhiso si shaqada loo baahnaa loo qabto